بسم الله الرحمن الرحيم. jabhadda wadaniga xorriyinta ogaadada jooxo waxay la wadaagaysaa dadweynaha Soomaaliyeed. waxaan u diraynaa qoyskii ay ka baxday xildhibaan Juweeriye Subcis iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo shacbiga Soomaaliyeed ee ka baxday ee mas'uulka u ahaydba tacsi ayaan u diraynaa. waxaa kaloo la qaybsanaynaa tiiraanyada geeridan argagaxa iyo xanuunka ay leedahay. waxaan ilaha weyn jabhadda uga baryaysaa dadkii dhaawacmay oo ugu horeeyaan labada gabdhood ee isdhalay ee Juweeriye walaalaha la ahaa in ilaahay u boogadhayo oo muxuu ahaa degdeg uga bogsadaan nabaradan gardarrada ee ku dhacay. walaalayaal jabhaddu kolley shir degdega jiraya guddiga fulinta go'aan bay ka soo saaraysaa. arrintanna waxay daba socotaa arrimo u ekaa oo sidan oo kale u dhacay oo ka mid tahay arrintii ardaydii maalinka dhoweed imtixaanka gelaysay ay askarta federaalka la dhaqmeen. arrin kale oo xanuun kululeyd oo kaba dambeysay oo hooyo weyn oo da' oo ooyeysa oo Soomaalida dhan codkeeda la qaybsatay oo la geliyay social media oo dadka qowmiyada kale ay dulmeen oo carruurteedii hore muxuu ahay u dileen qoladaasi haddana aniga ka bixi leh oo booliska Soomaalida la cadeeyay inuu muxuu ahay lagu soo celceliyay la sheegay inuu waxba u qaban waayo. intaasuba taxta muxuu ahay waxay maamulka hoostiisa ka dhaceen oo jigjiga ka dhaceen. waxa weeye xukuumadda deegaanka Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa marka u horeysa horta in Juweeriye xildhibaan Juweeriye askarigii dilay lala aaso. qodobka labaad in ardayda iyo hooyadaaba dadkii ku gafay degdeg wax looga qabto oo laga daba tago. qodobka saddexaad hay-adaha federaalka ee dadka Soomaalida soo mutaan ee ugu horeeya garoonku ee bangiyadu ku jiraan ee korontada ku jirto ee meelaha macaamiilkoodu ay galaan ee ku dhibtoodaan ee airline-ka ku jiro in dad Soomaaliyeed la fariisiyo. maxaa yeelay federaal xagee lagu wadaya ma garoonka jigjiga baa federaal lagu wadaya ma dhulkeenan baa federaal lagu wadaya. shaqada federaalku Soomaaliga ma qaban kara miya wuu qaban karaa maadaama oo jirto jirdiid iyo xagasho iyo kohasho dadka Soomaalida la kohanayo oo qowmiyadaha kale kohanayaan. waxa weeye dad Soomaali ah oo hawlahooda meelaha ay danuhu ka soo gelayaan ee magacaabay iyo meelaha kalena magacaabinba in loo buuxiyo wey. hadday dhici weydo oo ay socoto sidan oo maalmo intay hay-ad u baahdaan la tuso inayna waxba ku lahayn wax kalaa dhici doona. waxaan fiicnayn baa dhacaya. dadka Soomaaliduna dhiil duleesha biyahay noo celisay ayna dhihin federaalkan ka mid nahay Ethiopian ka mid nahay dalka qaranka erey lagu celceliyo meeshan hoosta ka maran daliilkooda waad aragtaan. arrimaha dadka Soomaalida dhibka ka haysto degdeg wax looga qabto. Allahumma saan dhalinyarada Soomaaliyeedna ummad waliba iyaga xaqooda difaacda. qolo wakiilo ama jirto qolo u damaanad qaaday anaga hawsha idiin qabanayna oo federaal baa qabanaya qowmiyad hebla qaban midna ma jiraan. waxa weeyaan socotadeena iyo hooyooyinkeenna iyo muxuu ahay carruurteenna iyo mas'uuliyiinteenna iyo xildhibaanadeena haddaynan ku nabadgeli karin meelaha ay marayaan oo aynan ku ixtiraamayn Etoobiyada kale maxaa inagana laynaga fili karaa marka si fiican maaha mana aqbalayn. shacbi habad ah iyo hay-ada nabadgelyo oo habad ah boolis habad ah liyu boolis habad ah xeerlaalin habad ah xukuumad habad ah shacbi habad ah saan baa dhaxaysadee ragna habadka waxaa nooga dhigay waa hangoolada. abwaandhowdan baa muddo 40 sano ka hor mise 50 sano ka hor iyo berigu ku ciishooday siyaasadaha geeska Afrika. ragna habadka waxaa nooga dhigay waa hangoolada hus baad odhan lahaydeen waa la sagranayaa. marka xukuumaddu iyo booliskeenna iyo liyu booliskeenna hangool noqdaan ma waxa weeyaan
inay hooyooyinkeenna iyo caruurteenna iyo socotadeenna iyo xildhibaankeenna iyo mas-uulkeenna iyo ardaygeena iyo socotadeenna inay ammaan helaan oo karaamo ku helaan weeyaan. haddayna helaynin ninna annagana nagu dhexeli maayo. nin baa laga sheegay inay tan hadda jigjiga nagu qabsato. nin baa laga sheegay dhag iyo dhanaan isma qabanayso. in aanu dhanaan joogay dharbaaxdo dhabankayga ka siiso war dhag iyo dhanaan ma dhacayso yidhi. marka in jigjigaa sidaana loogu galo ma dhacayso. in deegaanka soomaalida sidaana loogu galo federaal baa naaliyaa dee annaguna qataraal baa iman doon intii wax la sameeyo qataraal baana. marka waxa weeye sharcigu inuu shaqeeyo. hadduu sharcigu shaqeyn waayo ruux walba shantiisu maalaya markaas. waxaan u leenahay ciidankeenna hala ixtiraamo, booliskeenna hala ixtiraamo, xukuumaddeenna hala daba istaago, hay-adaha sharciga hoggaanka nabadgelyada lala shaqeeyo. waxaan inaan ku helo ilaashimo iyo immunity iyo difaac weeyaan. hangool aanu layla kortaagan yahay madaxa layla dhaca hadduu noqdo oo dib baa loo akhriyay. yaa khabeenyaa la iska dhaadhicin inaan wax wala iska samrayn uno waa dhici jirtay uno laynaga adugo bahashiyo ninow ma dhacayso. marka shacbigu cadhadiisu si aynan isu gaargaarin tallaabooyin cadcad xukuumaddu ha qaato. ha lala aaso ninkaas. hay-adaha federaalka ha laga daba tago. dadkan soomaalida af ayna garanayn iyo qori ayna garanayn kula soo qamaamaya ha ka dhex tagaan. ha ka tagaan. nagama celin karaan baroonka jigjiga annaga nagama waardiyeeyaan. nagamana waardiyeyn karaan. deegaanka soomaalida annagana lagama celin karo. ha jiraan meeshii cadow laga celinayo ha aadaan. marka hay-ada federaal unbaa taagan oo 4 xabo oo turbataari unbaa dadka soomaalida caydhsanaysa oo 4 qori xun oo ake oo jajaban oo duqowda unbaa madaxa lagala dhacaya. arrintaana laga daayo. dadka soomaalida laga daayo. allahu mustacaan. shacabka soomaaliyeedna ha soo jeeda asaguna inaan dadka ku xadgudubno oon ummadaha kale ku xadgudubno oon fadara noqono maaha oon gardaraysano oon laynagu dhex noolaan karin oon gun noqon. laakiin iyadana dhag iyo dhanaanna ma dhacayso. taana yaan dhicin iyadun. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.